wariyay nin ansaariya inuu ahaa nin ganacsada lagu tilmaamay naasik iyo waric xalaal miirad inuu ahaa xilligii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ninkaasi inuu maalin maalmaha kamida isagoo safar doonaya soo maray tuulooyinka iyo magaalooyinka deegaanka bani aadamka kamida oo dhinaca shaam inay ahayd lagu tilmaamay. ninkii waxa uu warsaday cid gaadiidlaya oo uu kaashado oo uu weheshado oo dariiqa marisa. waxa loo sheegay nin dadka ka kireeya fardo. ninkiiba farda iyo gaadiid ka kireeyay. ninkaasoo tuugaha asalkiisa yaa markii wadadii dhexda la sii marayay wuxuu yiri wadadan inagu leex. waxa uu yiri war wadadan haynagu leexina tana raadkiya dadka cagtoodu ka muuqataaya ina mari. wuxuu yiri may anigu tana aqaano tana dhow oo tana toobiya. wadadii ayuu ku hormaray ninkii. dabeedna markii hawd halkaas ahiya keenaya dhul qariiba la dhex maray iyo togag la maraayo yaa wuxuu tusay lafa dad badan oo dhintay. waxa uu ku yiri intaasoo aadama ah aniga ayaa dilay. waxaana u qoonsaday inaan furto oo sidaan adiga maanta qaadicu dariiqa kuugu ahay aan maalkaaga iyo dhiigaagaba banaysto. wuxuu ku yiri maalka iska qaado laakiin dhiigayga ii badbaadi awlaadaydii iyo ehelkaygii aan u noqdo. hooyadaybaa keligay dhashay sidii loo hantaatici lahaa ayuu aad u calacalay. wuxuu ku yiri inta aan dilayba hadal fiican way yiraahdeen qofna se kama maqal. waxa uu yiri waxaan ku yiri war 4 rakacadood intaan tukanayo ma ii kaadin kartaa mar hadaad dilayso. markaas wuxuu yiri waxa tukataa intaad rabto. waxa uu yiri waxaan bilaabay salaad. waxaan isku dhaxwaday ducooyin iyo aayad quraan oo qalbigayga ku soo dhacaysay. aayada quraankii waxay ahayd amman yujibul mudarra idha da'aa wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah. aayadaas qalbigayga ku soo noqnoqonaysay. ducaduna waxay ahayd yaa waduud ya dhul arshil majid ya fa'alu lima yurid. ducooyinkaas ayuu akhriyay. aghithni ya mughith wa aghithni bi ku'al ali. ducada markuu akhriyay yaa rakacadihiisa ku dhex jiray yaa wuxuu lusku la hortaagnaa warankii uu ku dili lahaa ayuu la hortaagnaayo dhaqso ayuu lahaa. wuxuu u jeeday ninkii oo durbadiiba xagga dambe jaleecay oo dhinaca fiiriyay isagiina salaadii intuu ka baxay buu fiiriyay. dabeedna waxa uu arkay nin faras wata oo aad u soo ordayo waadiga iyo toga dhinaca hoose ka soo socda. waran ololayana gacanta ku wata. ninkii ayaa ku dhuftay. markaasuu ninkii dilay. waa weydiiyay oo wuxuu ku yiri ilaah baan kugu dhaariyay yaa tahay. wuxuu yiri anigu malag baanahay u xil saaran amman yujibul mudarra idha da'aahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. anigu dadka mudiriinta wadooyinku markay ka xidhmaan dadka ilaahay u laabta dadka alla waafajiyo inay ilaahay u noqdaan kuwaas aan anigu iska rabtaagaa buuri. dabeedna wuxuu yiri yaa muqiith waqifni markaad lahayd albaabka koobaad ee samada gariiray. markaasa samadana lagu garaacayo garaaceedii ka fadhii weynay buu yiri. markaasa aniga lay soo diray inaan adiga ku kaalmeeyo. waa aniga ku kaalmeeyay buu miyaan orod yara mar haddaan inta kugu soo ajiibon kuugu imid.